روبرت حق كيس تليفونك انا قصوا واحد سؤال ويديني سؤال ويديني قاعد حماي وقتك هو مليون موديقل بليز maxaan bari ma maqlay abo caawad waxa aad sameynayso oo araaliya ka ah oo waa igu matala oo halagu ku socoyo iyo mid qof walba inta soo fuulo oo dhaho anagana aan ka laandheereyno adigu marka raaliya ka tahay miya Cabdullaahi inuu daawisa oo saa raaliya ka tahay qaladaada dadka mas'uulka ka tiina aad sameeysan oo maalmahan inagu fiirsaya jirto qaladaad oo dhan iska dhaaf baadan ba hadda kula hadlooyaaba qaladaadka aad sameeysan oo aftiirtiina nabada tolkayga tiimta waa yes or no labadaas le laga rabaa waqti Cabdullaahi inuu Daawud saa ula hadlo oo maanta 12 oo Daawud meegooda raadiyo adigu raaliya ka tahay miya idinka maxaa ku sameeyeen maalmahan markuu su'aal waayo adigu raaliya ka tahay miya yes or no idinka maalmahan maxaa sameeyeen horta su'aal waayo waxa soo dhan iga dhaafi adigu ninka inuu wax maalmahan raaliya ka tahay abo walaalkay tii maalmaha aad sameeyeen idinka maalmahan oo dhan meel ii soo dhig adiga hadda ninkan wuxuu uu sameeyay dhiiqada oo raadinayo anagana aan ka laandheereynayno adigu marka raaliya ka tahay dhiiqadaas la rabtaa miya dhiiqada aniga waxaan raali ka camalay dhiiqada ka bilowdeen waa ogtihiin wiilka maalinka salaati 4 saac waa ciishiin maalinka salaad burbursatiin faraha ka qaada haddii kale ma waa ciishiin waa burbursatiin Roberto me maqlaysa taana kale Roberto me maqlay عباس هو كسع عباس هو كسع واحد مود قلب محن باري واحد على مود قلب شنو مود قلب واحد وانا كذا عربه واحد مود قلب انا كذا عربه انا وسلامه نور وسلامه اويس واحد مود قلب سلام مسل waa ka qaaday walaalkay waa ku taaganahay warkii waa ku taaganahay soo dhawaad nin horta waa ka sii dhici rabaa waqti dambe ay tahay anu bariyahana meeshan ma ku badni sida hore sida caadiga xoogo mashquulkayga hawleygaas ka badan waxaan rabaa marka hore mar labaad inaan qof walba halkaas saaran soo dhaweeyo intaasoo qof meesha soo kortay wax badanaa lees daba mariyay meeshan almost 3 sano 4 sano ku sii dhawaa hadda inta media aan joogno 3 sano almost waa badan tahay marxalado kala duwan aan soo marnay intaan ka aqaano qofka marba isteeg ama xaalad buu soo joogay caaw halkaan ay maraysaa waxaan rabaa ilmaada riyaalow horta mid inuu qof walba gato aan fahamno mid darashada ah oo ilaahayna nagu maneystay Soomaalina aan wax kula qaybsano anagu moogtahay inaan wax isku qasqasna ma ahan Soomaali anagu waxa wax kula qaybsanaa magac la yiraahdo mudulood hiraabnimo la yiraahdo wax kula qaybsanaa ma taqaanaa ay sheeg xildhibaano mudulood la yiraahdo leenahay matalaad waduu madaxweynaha mudulood noqdo wasiiradii wixii aan lahayn hawiye aan ku lahayn aan ku heeyno madaxweynaha aan hayno darteed aan ku weeyna qabnaa horta inaan fahamno mid guud inaga dhaxaysan inaan ilaashano haday noqoto dagaal haday noqoto af haday noqoto idin horta inaan ilaashano taas guud inuu qof walba uu gartaay marka laga soo gudbo oo arrinka caaw hadda taagan meesha looga hadlo anigu inaan muduloodanahay oo abgaal ismaanahay oo wacbuun abgaalaanahay oo galmaax yunisanahay oo nin maxamed muuse aanahay cid loo wacbuun waa kala tagay galmaax aad wacbuun waa wax yar dad baariyo adeero dumud galway aadamayo dadkan iyo baariyo in adeero xeerka baro waa ku siinaa meega qaado ama anaa iska dagay horta cid looga heebaysanaya ma jirto nolosha ahaan waa sidaasi oo qof hadda sida aan u sheegayo looga heebaysanaya ma jirto waxaan rabaa galmaaxa caawa ummaddu ma ahan sharafka iyo qiyamka iyo karaamada ilaahay u dhaliyay in meel cidla ah oo maala yacni looga qaado ma ahan Soomaalidu waxay tiraahaa af aan af loo haynin baaba'ay war galmaax yunis ilaahay ka dhigay dad sharaf leh taariikh leh ilaa gumeystii Soomaaliya la diriraayay taariikh ku lahaad ahayd min Talyaaniga wax la googoosanayay la dagaalamay xeebay ma soo digaysid diri taariikhdiisu ay qoran tahay oo maanta ma taqaanaa Romania qofkii uu soo helayo ayaa ilaahay ka dhaliyay ma taqaanaa
nationalismki ka hor iyo kadib ilaahay taariikh dad la oo sharaf leh oo karaamo leh ilaahay ka dhaliyay oo Soomaali ku leh ummaddu saddex xaq u qiimo xuduudda dad ahaan inta ay leeyihiin waa sugtiin galbaxyo ilaahay idinka dhigay maanta xaggee degtaa baa la isku qiimeeyaa nimanka maanta magaalada Muqdisho laga bilaabo ilaa maxaa saciid ilaa ma taqaanaa ii sheeg soo nurdug la jiraatiin niman webi iyo bad isku xiran oo aan loo dhaxayna ilaahay ka dhigay war sharafka iyo qiyamka ilaahay karaamada idin siiyey waxay ku habboon tahay ay sharaf ku leedahay qofkii idinku soo xadgudba oo waliba xadgudubka laba nooc oo kaliya hooyada was iyo dumarkaaga saana iyo waa qaawan tahay ma ahan xadgudub ma ahan qofkii sharafka galmaaxyo isku soo xadgudba ilaahay hadal iyo taariikh wax isaga dhahdin buu idin siiyey maanta aniga abgal wallaahi iyo bilaahi iyo talaahi xoogaha xeerka iyo dhaqanka iyo sharafka inay macnaha dhamaanayaan ogaha mooyee abgaal maanta waa laga sheekaynaa haddii la dhaho nin yaqaanaan ahay saddexda abgaal ismaanay maanta wada degan ee soohodinkooda wada saarsaaran yahay nin maanta yaqaana wixii dhex maray shalay waxa maanta ay ku wada nool yihiin wixii ku noolaayeen nin yaqaanaan ahay haddii lagu xadgudbo adeero qofka walaalka ah wax iska dheh laakiin maanta wara baba no wax sax ma ahan waa laga soo gudbay arrinka caawa Cabdullaahi lagu soo celiyay Cabdullaahi shakhsi ahaan iyo waxa uu sameeyay intii wanaaga ee uu sameeyo oo walaalkay Cabdullaahi oo wanaaga uu falo ilaan qofku markuu meeshaan joogo wanaag iyo xumaan buu sameeyaa intii wanaaga uu sameeyo laga soo bilaabo naftiisa ilaa meesha noogu sarreysay muduloodu matala oo wanaag ku matala xumaantana in maadeeryaal runta idin sheegay naftiisa soo ma dhaafsiisana wax xumaana oo qofku ku matala male Cabdullaahi hadii inta loo gafo loo bareero galmaaxnimo loogu gafo qofku uu gafo wax iska dhaho galmaaxu ku matala abgaalu ku matala muduloodu ku matala laakiin inuu qof maago ama dad uu maago ama meel aan munaasabkeeda inuu ku hadlo cid uu ku matala ma jirto dhalashaha laga hadlaya Cabdullaahi hadii maxamed uu ixtiraamayo hadii uu jiro abgaaltito lagu ixtiraamayo hadii uu jiro dhaqan iyo soo jireen hadiiba la isku ixtiraamayo dhalasho Cabdullaahi waa dhashiishi ruxsan caddo waay abgaal ma waa yaqaana meel kasto culimadiisa ma taqaana ay sheegeen maanta sidoo xidiga ugu sarreeyay culimada abgaal ee nool maanta ay yaqaano awowgiis waa Sheekh Xuseen Cadde hadii dhalashaha laga hadlayo inaha anigu Cabdullaahi mar rabo waa isku dhacsanahay iyo waxaan ku marraacsan dhalashiis kuma xaqiraay qoona u leeyahay si shakhsiyana Cabdullaahi waa walaalkay dhalashaha waa nin dhashay oo la yaqaan waxii wanaagsan ummadaan iyo dadkan waa ku matala laakiin inaan dhigi karno waa khaldan tahay walaalkay xumaantan laguma matashid yaana galmaaxi aan naqaanay ee sharafta lahaa ee qiimka lahaa ee karaamada lahaa yaan laga dhigin dad ma taqaanaa kuna oo ma taqaanaa yaan laga dhigin oo wax dhigi karin wixii wanaaga naftiisa laga soo bilaabo ilaa meesha noogu sarreyso mudulkii diin islaamka Allah nagu dilo nagu matala wax allaah wixii xumaana ee ma taqaanaa gafa ee sharaf dhaca ummadda iyo sharafkiisa tiis u keeneen isaga meeshuu doono hala aado anu intaas rabo ummaddu inay isla fahamto walaalayaalow abgaalnimadu waxay sharaf iyo qiyaamo ku leedahay inaan isku walaashano isku ilaashano korkaas ka baxno haddii abgaal laga dagana waxa idin sheegayaa ama mudulood laga dago waxaan idin sheegayaa qof taagnaa karo jufadiisa ma jiro maanta waa arkaysiin shalay meesha uga tagay ka fogta oo shalay waxaan tagay iyadoo xoogaa baashu ay korkogoos tahay maanta waxay maraysaa dhalinyaradu waa u jeeda waxa idin sheegayaa maanta for example simply waxa arka dhalinyaro waaweyn oo saameyn leh oo saaxiibadeeya waa tusaale oo ku qanacsan inay yihiin galmaax oo ku qanacsan inay yihiin macallin diblaan oo ku qanacsan inay yihiin cali gaaf oo ku qanacsan inay yihiin daa'uud waa for example oo ku dhahayo daa'uudnimada naga badan waa beenta shal waxa ka badneed duloodnimo shal waxa ka badneed wacbuulinimo shal waxa ka badneed wacaasanimo maanta already one step house degtay qol waxa ku furan whatsappka oo cali gaaf power leader ku furan waxa ku furan macallin diblaan power waxa ku furan galmaax power tomorrow we are going back Somali mataqaana whatever mataqaana oo si kala baxno Isaaq Daawud whatever mataqaana Umar Galmaax whatever Yusuf Galmaax down until aan ka tagno in adeerina ka tagno abgaal wala runtii idin sheegayo hoggaankiina ku daba fayl hoggaankana waxa idin leeyahay qadiyadii shalay aad dadkan ku hoggaaminayseen walaalayaal wadida ka tahay sida shalay kugu feelsan baa kugu feelsan yahay wax macna ah ay lacagtu sameynayso malaha lacag la isku dirdiro ama lacag la sameeyo ama lacag laga fikiro wax macna ay sameeyso dhalashada iyo tiilo dhasha sameynayso mudulood wixii ka koreena qasam billaahi alazim shalay naarta la idinka waraabinayay maantana waa la idinka waraabinayaa isku kankeen uruuris maqaar mataqaana ay sheeg daarood mataqaana ay sheeg isagoo geed saaran la arkay
وات ايفر جيني urur Soomaali cid aan naqaan ma leh wallahi billahi talaab gud kale idin kula tumaray idin ma kala naqaan annaguna waxaana deeqdo oo aan baaki keenu yahay loogada ay noo saaran diin islaamka ilaahay nagu dilo war waa ka baxay waana maasantii salaamu alaykum Abbas hal su'aal ay taagan inta dadka kale aysan qaadan su'aashaydaani wali way taagan tahay alaabta oo Cali Xuseen habeenka camal aan sameeynayo qofka xasuusta Abbas waxa tiri maxaa la dhahaayo Cabdullaahi waa nin Maxamed Muuse oo reehebel haasi dhahay sida ognahay aniga Ethiopian ka imaada Cabdullaahi Ethiopia soo mar ayadoo xasan sheekh arday jaamacad uu soo diray 200 iyo samtiina uu ka qayb yahay member uu ka yahay hadisaba igu imaada dadka ku imaada uu ku jiray horeyna waa uma qashay haddana uu ku soo cilnaa waxir ka horna waa ni sheegay Cabdullaahi marka aniga Ethiopia ku caawinaayo oo wiilka ma jarteen oo ilahay wiil in adeerka ah meeshan ku dayacan saasana jirto Cabdullaahi wasni wacasla cada oo Cabdiraxmaan Saleebaan hooyadiisna naag xawaad la Maxamed ahayd sidaas ay tahay aniga ku soo wada Cabdullaahi oo ku caawiyo oo ku garab istaagay oo wax walba oo loo sameeyay qofka ehelkaaga qofka ugu fiican oo u sameeyay maantay marka qurbo imaaday muddo kadib waxaan arkay wiilkii horta mar mursada Facebooka haddana markii dambe waxaan arkay la caaynayo oo la leeyahay meel uu gal lama yaqaan hebel oo la yaqaano asagiyaan waraystay intaan raadiyay waa is aragnay waxaan ku yiri Cabdullaahi maxaa qaldan maxaa jiro wuxuu ugu yiri milyuun waxaan ku sheegay aan ka qarinay aniga waxaan ahay mursadahan iyo waxaan sheeganay miihi waceeslaha aniga aan kugu soo joogin miihi yaa tahay Maxamed Muuse ahay Cabdullaahi shalay wuxuu ahaa nin abgaala oo Maxamed oo waceesla cado Cabdiraxmaan Saleebaan maantana Maxamed Muuse waaye Abbas oo naagtu Ethiopia ugu imaada oo qorax asoo taagan baasaboorkiisa immigration ka soo qaadan waa aniga qof ma taqaana maantay oo qabiil abgaal kamida oo mid kale la fakar raadinayna ma jiree hadda xataa dadka islaamada yar-yarkiya waxaan dhihilaynaa la fuur raadina ninka laakiin ninka oo adgaal Maxamed Muuse oo maanta waceesla la fakar raadinayo Cabdiraxmaan Saleebaan la fakar raadinayo ma jiro shan ninkan nin waceeslo Cabdiraxmaan maanta waxa taaganta waa Maxamed Muuse woon ugu bedelaayo oo noqon kariya taaganta aniga waxa ii taagan wali su'aashayde horta bal waxaan kale inta la gudo kalin Cabdullaahi Maxamed Muuse nimadiisa rabaa inay cadaan u helo sababtoo aniga shalay nin waceeslo Cabdiraxmaan ku garab taagnaa hooyadiisna xawaadle maanta hooyadiisna waa agoyr asigana waa nin Maxamed Muuse waxaan kala hanoo dambeyn mid kale Abbas waan kugu sii daro gabar ceel Umar oo wuxuu dhooyaa ninkeeda ana la fuulo ana la waso horta celigu malaanga ba galmaha macna celigu kuma jiro miyaa mase gooniya u riixda ma fahmi hal qof oo celiyo ka hadla ama hal qof oo galmaha oo dhahay inta qolka soo furto wariyaa ma gabar celi Umaraha nin la wasta ma gabdhaheena Google dhaaf sameeyo maxaa gabadha ku daba dhiga ninkiiska celi hal qof oo galmaha oo dhahay male asigana inta u soo wada fuushana xaladii waa ugu matala maxaa la yiraahdaa waa nin galmaha ma diidin inuu galmaha yahay wixii xun oo san ugu matalayn ma ahane qofka runta loo sheega xataa haddaad dhahaysid wixii xun ugu matalo ma dhihi kartid waa inaad dhahdo gabar galmaha ma dhihi kartid anaa waso oo nin qabo mana dhihi kartid Daawud iyo ogaasidna anaa caay ma dhihi kartid waa inaad dhahdo laakiin wixii xun ugu matalo wixii fiican ugu matala oo aan Maxamed Muuse aniga galmaha waa maasad qof ay dhahan ma dhahay aniga isoo yiri aniga waa maasantay milyan walaashay tahay anu hadda ma doodi lahayn caawa qof kale wallahi lama hadli lahayn laakiin ina gabadh walaashay oo ixtiraam aanu haayo sharaf iyo karaama aanu haayo oo in adeertay tahay aan kugu soo noqonayo wali aanu adigu ixtiraamayo waa iska socon lahaa oo hadda wallahi inaan ku siinaa wax macna ma sameeyayso laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego Cabdullaahi isagu ama waceeslanimo ha fuulo ama murursada ha sheegto ama agoonyar ha sheegto ama whatever ee Soomaali qabiilku doona asagu ha ka sheegto laakiin anigu nin shakhsiyan u aqaano adeerkiisa Xuseen Cadde yaqaano walaalkiisa Cabdifataax Maxamed Sheekh Xuseen yaqaano oo ma taqaana isku aabe ay yihiin yaqaano meeshii ay ka deganaayeen ma taqaana Kaaraan yaqaano aabihiis yaqaano guriga Bakajaax meesha la yiraahdo ay ka degan yihiin hadda markaan shabaabka xureynayna Soomaaliya aan tagay ee ma taqaana ciidamada deegaanka hogaaminayna gurigiisii aan tagay awowgiis u deganaa aan tagay anigu horta shakhsiyadaas iyo aqoontaasaan u leeyahay caddayn kale iyo asaga weydiiyaa ta iyo ku dhalay inaan dhaho wax macna ah ay sameynayso ma lahan dhalasho ahaan walaashay isagu wuxuu doon ha sheegto hadduu rabo hadda caawinta meesha soo fuulay yiraaho waxaan ahay ujeejeenaan ahay ama ha fuulo ma taqaana isaga qoladan oo hawiyaha ka tirsan maxalliga dagoodiga maalaay wuxuu doon ha fuulo isagay qusaysaa laakiin aqoontaan u leeyahay sida shakhsiga ah waa taas waa mid gabadha أنا ورت قبلهاس حقيقة مركان إلهي أن كبقو أنت أمقنا إنه ده أما هذا وده هو لقيه ولا كانوا عمرك هذا أنجرو
انت تيك ان جوجو كما ارغ isagoo saas dhahayo haduu dhahayna wax kasto iska daa gabar waaba u gafid gabar Soomaaliyeed ama gabar galmaax Yunus ama gabar Abgaala ama gabar Hawiya ama gabar Soomaaliyeed afka Soomaaliyeed ku haashin loo gaf iska daay gabdhaha gaalada wadamada ku nool xataa haduu u gafo adeerow cid uu ku matalo oo qabiila ma jirto inaan pointiga fahamnaa la rabaa cid uu ku matalo wax kasta oo xumaana gabar waaba inuu maanta qof xataa la hadlo ama qof aan isaga u gafin inuu u gafo cid uu ku matalo oo naftiisa Cabdullaahi aan ahayn ma jirto laakiin wanaagu inuu galmaax ku yahay abgaal ku yahay wacbuun abgaal midna ka baxaa waa ka baxaa waa ma santaa midna ka baxaa amra ka baxaa ka dhaxgisto waa ka baxay maadaama ay saas tahay maxaa loo waayay ile gabadhu waa galmaax gabadhu maaha ninka qaba cidiisa ninka dhaqan uu leeyahay gabadha dhiigeeda male waxiga maanta lagu jiro waa ogtiin qof walba marka wax la sheego qofkiisa garab taagan gabadha masaakiinta oo ilmaha haysato oo waxaan shaqul ku lahayn oo arintan ogeyn markuu habeen walba leeyahay naagta anaa waso naagta anaa gogol daaf la sameeyo markuu ninka ka soo baxaan luuq u gala naagta guskeyga dhuuqda uu leeyahay gabadhu miyeena gabar abgaal cismaan ahayn miyeysan gabar oo galmaax ahayn miyeysan waayay waa maasan tahay maluunay inaad lafti keenan kaga meena markii kaga baxaarta marka meegash maxaa loo waayay wiil ama Maxamed Muuse ama Eliya oo iyada dad u xigo ama galmaaxa kala oo dhawriya Cabdullaahi waxa aragta kala sameey laakiin gabadhu waa galmaax gabar Soomaali iyo gabar abgaal iyo gabar galmaaxne ood kama ajira karti mar dambe hadaad gabadhaas guskaaga qurunka ku sheegto guskan ka jarayna nin dhaxalo way marka kulli wada leeyahay wixii xumaan ugu matal maanta lagu soo cilcilnaa gabadha waa ma santahay milyan walaashay waa ku salaamaya waa ma santahay waxa rabaa marka gabadhaasi hadayba dhacday anu horta ma arkin ilaa hadda anigu ma aqaano munaafaqada iyo mujaamalada adeero ma aqaano qofna anigu waxna uma hoosaasiyo waxa qofka ku arkana kala ma gambado horta ilaa hadda ma arkin saad u dhahayso yarada aad dhahayso iyo gabadha laftirkeedana waxa aqoon u malihi meel ku dhahayna qasam billahi ma arkin horna ma arkin haddana ma arkin laakiin hadayba dhacdo la waayo galmaax ay noqdeen dad noocaas gabadhu waa gabar wacbuunan abgaalay gabadhu waa gabar abgaal ismaanay maxaa loo waayay abgaal sida hadda aad dhahaysa dhahay hadduu jirana uu dhahayna abgaalkaas dhahay baan noo dhahan anu intaas ugu gudbaya waan idin salaama walaalkay Roberto madaxweyne Suulay walaashay Milyuun Siraaye team odaga qof walba kan joogo salaama habeenkii waqti waa idin wacnaa waa mashquulan galaa laga raalaa ma santii هذا أمها سنتهاي